waxaan rabnaa inaan soo saarno qof aad iyo aad khatar ugu ah dhanka maamulka oo maamulkiisa oo sareeyo oo wax kasta oo loo dhiibo maamuli kara shirkad ha noqdo institution ha noqdo creativity leh hal abuur leh wax samayn kara oo qofka loo baahan yahay sababtoo maamulka Soomaaliya meelaha aan faqiirka ka nahu kamid yahay oo aad iyo aad dadku faqiir uga yihiin ayay kamid tahay marka horta fursadaas waxaan u arkaa inay tahay fursad in ku soo aaday oo meesha ugu quruxda badnayd marka inay ilaahay tawfiiqda ma maqashay hebel ilaahay tawfiiqda waafajiyay tawfiiqda barbarada alla waafajiyay ma maqashay tawfiiqda barbarada ragga in alla waafajiyay baan u hadda u arkaa fursadaasna fursad banaan way waa ku wareer fursad banaan way shaqada marka la isa siinayo oo qofka shaqo la doonanayo carabtu waxay dhahaan daba qaar waxay dhahaan yajib an tufrid nafsaka ala al-akharin marka shaqada maanta la soo bandhigay shaqada dad badan baa shahaado geystay kuwa hadii aad la mid tahay sababta shaqada lagu siin maxay tahay حتى waxa aan rabno waxa waaye computerka oo qofka la qoraayo ma rabno inuu qofku traditionalka loo laabto inuu xawaare ku qoro qofka 6 bilood halkaan ka baxa waxaan rabnaa computerka markuu qoraayo asoo sii jeedo inuu qoro asoo soo jeedo usoo qornaa aan doonayna insha Allah taala heerkaas inaan gaarsiinaa rabnaa oo luqadiisu ay aad iyo aad qoraalka iyo xawaaraha uu ku qoro binaadankana nin waxa isteeyeen ninka waxa istaan shaqaale u baahan yahay loo shaqeeyo ka waxa istaan dad u shaqeeyo ilaahayna isku arsuqa dadkooda دين والبا نجي جون إلى جون ده هذا حمال يقدر runta hadda maanta u baahdo inaan xafiis cusub furo waxay noqonaysaa dadkaas in laga shaqeeyo xafiiska si fiican u shaqeeyo muddo qaadanaysa marka hebel cudurkiisa la saar waayay si loo leeyahay wala hebel dhakhtarka hebel ha cudurkiisa helay ma maqasheen horta hagaag sidoo kale waay meesh ciladu ka jirtay bay fahmeen ilaahay waafajiyay kuwa ka faa'iideysta inaan noqonaa rabnaa marka si u noqonaynaa inta hadda baranaysaa fursad baa isla horta ka faa'iideysta inta noqonaysaana inta jecel yahay u sheegaan waxba iska soo bartay wixii la idmana ma qaban karo horta shaqo maahan mogta shaqo maahan waxyaabaha labaad oo dibloomadaanu ay daaweynayso waa dhammaan waxa la xiriira qoraalka la xiriiro waa oo waxa loo yaqaano writing waxa loo yaqaano nooc kasta uu yahay oo laga hadlayo ama ha noqoto memo ama ha noqoto note ama ha noqoto minute ama ha noqoto report wax kasta ee wax lagu qoro ayaa luqadda Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska ah labadaas luqadood si fiican qofka loogu bari doono oo halkan ka baxaya 6 bilood inta uu joogo product marka la soo saaro iyo qof in la soo saarahay meel iska waafaqaan product marka la soo saaro maxaa loo sameeyaa xayeysiin baa loo sameeyaa featureskiisa intuu jiraayo kida mobile marka Soomaa qofkuna marka alla markuu jaamacadda ka soo baxay oo fiilka imaanay waxaan maxaa loo sameeyay aalada laga fiirin lahaa featureskeeda iyo qualitygeeda iyo inta la fiirin asaga maxaa la fiirinayaa muxuu aqoon leeyahay iyadoo la fiirinayo competency education and experience dadka yaryar waxaan kula dardaarmayaa hadda waxa la barto jaanis ay jira nafka ha isku hadlayna adoo abaha xoolo haysta iyo aduu haysanba kista ah shibirisa oo maareysatid horta qofka waxa wanaagsan in uu gaaro meesha uu gaari karo meesha ugu dambaysa qofku meel uu gaari karo soo ma jirto xageed gaari kartaa hadaad dabcad inaad fahantid xageed gaari kartaa qayrka baa la fiiriyaa hadaad aragtid nin loo yeedhanayo oo maartay khabiir ah oo kaalmeeshan imo hebel imo rag waxa jira saacadii maxaan ku dhahaa kumanaan dollar ku shaqeeya jira so insha Allah taala waxaan rabnaa inaan soo saarno dad macno leh oo suuqi wax ka bedeli kara waxa wanaagsan buu Imaam Ghazali meesha u dambaysu gaari kara inuu gaara wuxuu kale u yiri hadalkaas isagoo hadalkiisa wato wuxuu yiri hadii cirka la aadi kara buu dhahay oo cirka Sacuudi yani hadda waa la aadaaba oo space baa laga sameeyay waa qarniga shanaad markuu leeyahay waxa la yaab labo dhahay oo yani nin cajislo waan arkayna ninkii dhulka ku hadhay buu dhahay oo cirka aadin buu dhahay nabinimada buu dhahay hadii dadaal lagu helayo buu dhahay waxa la yaab labo dhahay ninka aan dadaalkiisu uusan nabinimo gaarsiinin hadii dadaal lagu helayo dadaal hadda lagu helo waxii baa lagu helaa marka barnaamijka hadii hagaag academy ay bilowday waxa weeye qaabka dunidu hadda u socoto dadka soft skills la baro ayaan hordhac runtii u nahay dad badan oo insha Allah inagu dayan doonaan jaamacadaada dhigo theory-gaaga iska soo cab laakiin waxaad u baahan tahay soft skills kooban oo practical leh oo aad ku shaqeysan kartid
jaamacaduna hadda waxay la mid yihiin 14 boqolka aqaana in ka akhrisan maayo inaan hadda saas dhahno jaamacad halkaas marayaan saas noqonina xirfadiina barta intaas waxaa sii dheer aan idin sheegay boqolkiiba 60 waxa halkaa ka baxaya practical ay activities ay noqon doonaan 60% oo kale oo activities oo ku dhex jira oo maadooyinka ku dhex jira ayaa qaadan doontaan laakiin waxa aan u baahannahay oo ama aan runtii aad iyo aad idiga rajaynayna waxa waaye waxa loo yaqaan ereyga adduunka loo yaqaan commitment ereygaas waa fahmayna sax maxaa loola jeedaa af Soomaali maxaa la dhahaa waa ka go'naansho qofku markuu wax baranayo inay ka go'an tahay akaademiyada hagaag waxa u qorshaysan ilaa laga gaarayo 2051 in aan soo saarno 100,000 oo leh xirfad iyo akhlaaq wanaagsan inaan soo saarno ayaa doonayna insha Allah ta'ala